xasan xanafi oo ahaa ninkii u qaabilsanaa al-shabaab dilalka wariyaasha Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay maxkamadda darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida ay ku xukuntay dil toogasho kadib markii uu qirtay in uu galay dambiyadaas. xasan shuuti oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda. ujeeddo xukun maxkamadeed maanta ay taariikhdu tahay 3 bisha 3 2016 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysane xasan xanafi xaaji cabdisalaan 28 jir ah ina maryan saalim cumar ku dhashay xamar kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaabilsan dilalka saxafiyiinta isagoo dil u geystay marxuumiinta kala ah mahad axmed cilmi cali iimaan sharmaake saciid tahliil axmed mukhtaar maxamed hiraabe iyo sheekh nuur maxamed abkey. dood dheer kadib markay aragtay maxkamadda eedii xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd 178 suuratul baqara iyo aayadaha 33 suuratul maa'ida qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad iyo kan 19aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay qiraalka eedaysane xasan xanafi xaaji cabdisalaan uu ka hor cadeeyay garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa in uu ka tirsanaa ururka al-shabaab gacanna uu ku lahaa dilalkii loo geystay mahad axmed cilmi cali iimaan sharmaarke iyo saciid tahliil axmed isagoo sheegay in uu asaga oo wejiga u xiran yahay uu kala degay gaari uu saarnaa marxuum sheekh nuur maxamed abkey oo ku sii jeeda gurigiisa sidaasna ay ku dileen. markay dhageysatay maxkamadda markaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedaysane xasan xanafi xaaji cabdisalaan uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab tiro dhowr jeer ahna uu ku handaday in uu dili doono iyagoo sheegay in uu asaga soo wacay una sheegay in marxuum sheekh nuur maxamed abkey uu gacanta ku haayo isla markaana dili doono sidaasna lagu dilay sheekh nuur maxamed abkey. sidoo kale maraggu waxay caddeeyeen in sheekh nuur abkey ay dileen rag uu wejiga u xirnaa. markay aragtay maxkamadda dembi muujinta ah codadka laga duubay xasan xanafi xaaji cabdisalaan isagoo handadaya saxafiyiin iyo dukumiintiyada laga qoray eedaysanaha markay dhageysatay maxkamadda doodii qareennada oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo lana tixgeliyo codsiga eedaysanaha sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile shabaab gacan ku dhiigle xasan xanafi xaaji cabdisalaan uu yahay dembiilo galay dembiyadii lagu soo kala oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabilaahi tawfiiq. xasan xanafi xaaji ayaa ah al-shabaab waxaana uu qaabilsanaa dilalka wariyaasha. maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.